hagaagaya amnigu ayaamahan dambe dhibahaas ka jira Soomaaliya oo faraha badan baanu ka mid nahay intii koonfur wax ka hagaageen oo shabaabku uu jabay annaguna amnigu waa noo soo hagaagayay kacdoonkan dambe ay soo sameeyeen la mid baan noqon waa barnaamij isku xiran weeye shabaabka arrintiisu inay yiraahdaan meel walba waa joognaa iyo waa ka muuqanaa wadagtiin markay qarxiyeen hargeysa saamaha waxay yiraahdeen waxaan uga jeednaa dawladdu inay yaraano amnigu waa sugna baa shacabka loo leynayaan ogtahay markay xamar wax ka bixinayaan gaalkacyana waa ka bixinayaan garowga waa ka bixinayaan haday u suurowdo iyaga isku xiraanta Soomaaliya oo dhan ay isku xiran tahay amnigeedu baa shaqaaqooyinkii dambe hadda bil ka hor Rabadaantii iyo lagu bilaabatay ku saabsanayd laakiin hadda ayaantan waa roon fariin waxaan u dirayaa in la iskaashado dhammaan shacabka iyo dawladda maamulada waxa dadka ka dhaxeeya amniga hadda gaalkacay laba maamul baa ka jira laakiin amniga ka dhaxeeyo qof waliba nabadgelyo u baahan tahay baahidaas amniga waa la wada qabaa shacab iyo dawlad iyo maamulo kala jira intuba in la iskaashado reer gaalkacay maanta gaalkacayaan joognaa reer mudug Soomaaliya in la iska kaashado amniga maadaama loo ogaaday shabaabku inay yihiin qarxalaawayaal cid kale u shaqeeya oo mabda kale ku shaqeynaya waxay wax ku raadsadaan ay tahay waxbaan bi'ina waxba iska arkaysa shaqo u yahay iyaga cid bay report siinayaan saano isleenahay habay bi'inayaan waa qiranayaan haddana waxaad moodaa in guushooda ku jirto inay wax bi'iyaan marka in la iska kaashado baanu shacab iyo maamul iyo Soomaali weynba faraynaa saxaafadda arrimaha horumarinta saad la socotaan waxaa lafdhabar u ah hay'adaha samafalka maamulku waxyaabo aan saa u buurayn buu samayn karaa laakiin waxyaabaha qabsooma mashaariicda hay'adaha samafalka ayaa hormood u ah hadda waxaanu faraha ku haynaa laba wado oo midna ay laami tahay midna ay tahay waxaan gravel ama jid cadde jay ayaanu faraha ku haynaa labadaas wado waxaa bixiyay dhaqaalahooda EU-da waxaana ka soo qaaday maxaan ku rahday hay'adda ILO waxaan ku rahday waxa weeyaan organization international organization labor labada mashruuc waxay bilaabanayaan asbuucyadan soo socda haddii Ilaahay ka dhigo labadaas jid midna xero dayax buu ka dhaqaaqayaa laamiga Shiinaha ayuu ka dhaqaaqayaa wuxuu tegayaa xero dayax buu dhex marayaa wuxuuna kaga dhici doonaa laamiga centerka hotelka in aad Sheekh Doon odaga dhoomis lagu magacaabo jidkaasi waxa weeyaan waa jid laami ah oo mitirkiisu yahay 700 mitir weey jidka kalena waa jid cadde dheer oo ilaa iyo gaaraya 1 kiiloomitir wuxuuna ka dhaqaaqi doonaa isla laamiga Shiinaha ayuu ka dhaqaaqi doonaa city center wax yar marka xagga maaragtay dhinaca petrolka looga soo dhaqaaqo petrol stationkii hore ayuu ka dhaqaaqi doonaa wuxuuna u bixi doonaa galbeedka labaduba xaafadda Israac ay ka fulayaan ay waxaan oran lahaa halman hadal kuma jira xaafadda Garsoor ay ka fulayaan labada mashruuc hadda waa bilaabanayaan waanu kala saxiixanay aad bay maaragtay way hirgeliyaan insha Allah tan kale waxa weeyaan maalmahan idinku waad arkayseen laamiga magaalada dhexmara gaalkacyo oo googo'ay oo aad u googo'ay oo gaadiidka waaweyn iyo baabuurta ku badan iyo dadka oo biyaha ku sayrsha maxaan ku rahaa makhaayadaha iyo kuwa maaragtay oo laamiga ku sayrsha oo dee aan ilaalin maxaan ku rahaa nadaafadda kana tan weynba dawladaha hoose walow ay aad iyo aad faraha aan ugula jiro inaanu hirgelino arrimaha nadaafadda magaalada dhexdeeda oo dadku ay maqlaan oo bulaacada la qodo hadana waxyaabaha laamiga kala gooyo waxa kamid ah biyo lagu shubo iyo gaadiid waaweyn oo markaas waxaanu samaynaynaa oo dayactiraynaa haddii Ilaahay ka dhigo horeyna aan u sheegnay
laamiga magaalada dhexmara ilaa waxa weeyaan waxaanu hadda haysanaa 15 fuusto ama birmiil oo ah daamur tasjiilaadkii kalena waxa weeyaan waa noo urursan yahay dhawaan ayaanu bilaabaynaa haddii ilaahay ka dhigo.